madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane Cabdiqaadir Mubadeere gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland iyo xildhibaanadiisa wasiirka dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliyeed mudane Xuseen Sheekh iyo wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Cabdiraxmaan xildhibaanada qaranka ee federaalka Soomaaliyeed siyaasiyiinta xilalka kala duwan ka soo qabta dalka heer qaran iyo heer dowlad goboleedba dhammaan ummadda ka soo qayb gashay munaasabada tanqaaliga ah oo ay ugu horeeyaan ergada horteena ku ansixiyay dastuurka Jubbaland qaybaha bulshada kala duwan بروتوكولات اللي فضية وطن بيش عالم كأي صومالي فضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أو أي تاريخ تأكد أغسطس طبعا شيء طبعا وحن همبليين يا ما ملكة دولة قبلتك يا شعب جبلاندي أو جد سعد قصوم مري ما أنت إن اللابان بالكي كوبادها كملجا. markaati ka nahay inay maanta horteena ku ansixiyaan dastuur wadani ah iyagu ka shaqeeyeen intii u soo adeegtay dowr kasta ka ciyaartana waxaan leenahay hambaliyo waxaan ognahay inay dadku ayna jeclayn maamulka ku meel gaarka ah ee Jubba waa dhamaaday maanta markaati ay tahay waxaana dhameystiray markay halganadii kala duwanaa soo wadeen ee isdoorteen ee madaxweyne iyo xukuumad iyo baarlamaan samaysteen maantana dastuur horteena ku ansixiyaan oo markhaati kan ayaa soo gabagabeeyay geedi socodkaas waxaan maanta markhaati ka nahay in afhayeenka baarlamaanka Jubbaland horteena ka sheegay in birita uu kulminaya baarlamaanka lagana hadlayo nidaamkii iyo guddigii doorashada oo loo qabto horteena laga sheegay 15 bisha Agoosto وأقول كلام نوم وقته قدوم يا أديك برلمان كاجا يا حلو إنساري هاي هنو كينينا إلا تفرسمو هي ظروفنا رسول درسي هي حالة أنا أي أدي بلوري هنو كينينا مرالك الشعب قاعد شعب Jubbaland هي معمولة كالدول وحيسويان شيء طوّلت أغسطس إني دورتان مدحوينه يكو حجام. هذا تاسو هذا Jubbaland وخاصة معهن أوامد Soomaaliya ونقول يسمى مثال أدونس. دولة قوانين الصوص على جد كاس أي مرة يعني يكو جرهضة. واحد Soomaaliya والصعد وهذا أبتنين لبضكم يلحق طبعا كواحد بين دورش كان على ذلك Soomaaliya دورش الشعب يقول ليه هاي. إدقابه لهي وحال الصعطان ما المدى ودين دولة فدرال كايكون واقضي إني ديارنا يسشروين الصوماليات أو قيبها كالدوانا أمد الصوماليات يا معمولة الشراء تلك قديس يدبلي سبلغت شنعي آيها أمد الصوماليات أرنتا سوحا سيدو كلا تاغيري أورفا السياسة ديت إدلك كجلسان الصعطان وحا تاغيري دولة قبلية waxaa taageeray bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed hadafkaas in la gaaro marka waa hambalyan leenahay ummaddu ha tashato aayaheeda ha ka tashato hoggaankeeda ha samaysato ay ku aaminaysa nafteeda iyo mustaqbalkeeda iyo waxaan la soconaa in Puntland ay tiri gobosha anaga dhigay waxaan la soconaa in Jubbaland diyaar u tahay inay gobosha waxaan ugu baaqaynaa Soomaalida meel kasta joogto gobosha meesha alla ka dhiga in la galo ee lagu tashadee wax la isku ogyahay ummadda la tuso iyo jidka la marayo meesha loo socdo haddii intaas isku raacday waxaan u malaynayaa inay guul Soomaaliya u soo hoyanaysa tahay waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaaliya waxay u baahan tahay wadaninimo in lagu shaqeeyo
waxay u baahan tahay dib u heshiisiin waxay u baahan tahay cuqdadaha raaga in laga saaro ummaddu qalbiga isu furto hal qoys inay tahana ogaato oo qodobka iyo kala xirka laga daayo shacbiga Soomaaliyeed asaga ayaa loo adeegaa madaxweynaha halkaas fadhiya khaadim waa idin shaqeeya shacbiga Jubbaland iyo wasiirada iyo ku-xigeenada madaxweynaha iyo baarlamaanka ogaada awoodda idinkaas kale haddaad sii daysaan oo aadan dabrina waxay rabaan idinka sameeyaan marintaas waxay ku socotaa Soomaalida war ummadda hadday xil ku dhiibato ku doorato waa loo adeegaa waxaa rabta lagama sameeyo dastuurka maanta horteena lagu ansixiyay ayaa muwaadinka Jubbaland inuu damaanad qaadaya mustaqbalkiisa iyo noloshiisa iyo xoolihiisa midka qarankana sidaas oo kale inuu yahay waxay waxa la rabaa in la isku ogaado inta kadib waxaan rabaa inaan fariin kala diro Soomaaliya uma baahna maanta mudanayaal iyo marweyn in la kala qoqobo la kala fogeeyo Soomaaliya musiiba ku habsatay dadaalo badan ayay Soomaalidu gashay caalamka iyo dawlad goboleedka urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika iyo adduunka oo dhan ugu taageereen in mar un dawlad Soomaaliya loo sameeyo wartii la sameeyo haddaan jilaafo u dhigno xagee u socnaa jilaafo loo dhigi maayo waa khaldantiina waxaan ka joogan leedahay qoray naguma qabsana xilal loo dhiibtay kulli halka ragga fadhiya waa soo wada mareen kuwa maanta fadhiya bariitana kuwa kala imanay waxaan rabnaa ummadeena Soomaaliyeed in la isu dumo qalbigoodana burcad la isu mariyo looma baahna in la kala fogeeyo marka waxaan ka digaynaa oo ku baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed wanaageeda laga wada shaqeeyo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa si xun wax u sheegay si xiroola ka dar si xun wax u sheegay si xiroola ka dar war miidida waxa la qorayaa ma aragtaa maalin walba waxa la aqrinay warbahda saxaafaday shuruucda dalka iyo dawlad goboleedka ku yaala raaco ummadda heesku dirin ee ummadda isu soo jiidaan leedahay iyagana inta fadhida iyo inta maqan waxaan maalin walba akhrina Soomaaliya waa la qaybsanaya waa la kala googoosanaya ma beema sheegaya Soomaaliya qaramada midoobay iyo ururada adduunka iyo kuwa gobolka ayay warqad ka haysataa ay ku leedahay dalka Soomaaliya xuduudiisa aan wada naqaano waxay la mid tahay sida qof kasta muwaadin gurigiisa oo dawladda hoose u haysta soo looga wada leeyahay ku leeyahay yaa ka qaadan kara dawladda hoose adduunku waa qaramada midoobay iyo golaha ammaanka Soomaaliya waxay leedahay khariidad lagu yaqaan iyo ummad degan cid qaadan karta ma jirto hal sentimitir qaadan karta marka in been laga sheegay leeyahay dawladaha dariska kala googoosanaya Soomaaliya soo qalad ma yaa goobeyta ma aqbalayna dawladaha dariska waxay noo daadinayaan dhiigoodi waad maqlayseen dadaalada uu bixinayay urur goboleedka IGAD oo hadda ka hadlaya ambassador adduunkooda inaan dawlad noqonay rabaanay hal laga daayo xagxagashada iyo beenta laga abuurayo dawladaha saaxiibada noo soo gurmaday intaas kadib mudanayaal iyo marweyn waxaan diyaar u nahay waa la kaftamayaa qayladaan qaran ayaa jirto oo ognahay waxgaradka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ee dawlad goboleedka iyo ummadooda ay u taalaa in qayladaantaasu dento dowr kastaana ka ciyaarayna annagoo muwaadiniin Soomaaliyeed qayladaantu dawlad goboleedna waa ka jirtaa naga ballan qaada maamulka Jubbaland qayladaanta hoose in la ka dameeyada siyaasad waa la isku qabsadaa waa la isku jiijiidaa laakiin colaad ma laha waa la xaliyaa waxbaa naga maqan anigu 2 kiilan lahay anigu 4 kiilan lahay anigu 30 lahay inta naga daysaan sanduuq iyo cod bayba tagi doontaa iyo tirakoob ummadooda qayladaanta Jubbaland aan ka maqlina waayahan hana la ka dameeyo nagana ballan qaada fariintaas waxay ku socotaa sidoo kale dawlad goboleedka kale oo jira ummadda Soomaaliyeed inay naga daayaan dad siyaasiyiinta iyo waxgaradka fariimaha khatarta ee ummadda kala fogeynaya ama kala geynaya dirayana waxaan ka codsanaynaa inay naga daayaan ummaddaas yaan la qaybin ummadda darbiye lagu kala odama karo xeendaabidaas waa burbureen ugu dambeyntii mar kale aan hambalyeynaya Jubbaland maamul iyo shacbiba anigoo fursadda ka faa'iideysanaya waxaan iyadana hambalyo u diraynaa maamulka
iyo shacbiga Puntland oo 17 jirsada maanta oo kale 1 Agoosto waxaan rajaynaynaa marka inaan sidaas isku ogaano waa idinku dheereeyay jaanis haleysiye waa u jeedaa kalgacal in la qabo aan qaadanaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.